wararka laga helayo buuraha calmiskaad ee gobolka bari ayaa sheegaya in duqeymo cirka ah ay halkaasi ka dhaceen habeennimadii xalay ahayd taasi oo lagu duqeeyey goobo ay ku dhuumaalaysanayeen kooxda daacish ee ku sugan qaybo ka mida buuraha gobolkaasi oo ciidamada puntland ee halkaasi ku sugan ay kula jiraan dagaal xoogan islamarkaasina uu shalay halkaasi ka dhacay dagaal kharaar oo u dhexeeya ciidamada puntland iyo kooxda buurahaasi ku dhuumaalaysanaysa hase yeeshee ciidamada puntland ay sheegeen inay guul weyn ka gaadheen wararka ayaa intaasi ku daraya in qaraxyo waaweyn laga maqlaayay xalay deegaano ee ku dhow aagagii ay ciidamada puntland difaaca kaga jireen kuna sugnaayeen xilliga dagaalku uu dhacayay islamarkaasina ay kooxda daacish markii hore ku sugnayd hase yeeshee ugu dambeyntii ciidamada puntland ay ka saareen dhinaca kale ciidamada puntland ayaa la sheegay inay difaac adag ay ka galeen deegaanada hoose ee loogana soo dego buuraha calmiskaad si ay uga hortagaan firxadka kooxaha daacish ee ka baxsanaya weerarada ciidamada ee cir iyo dhulba leh ee markaasi ciidamada puntland ay kula jiraan kooxdaasi dagaalkii ugu xoogganaa ayaa maalnimadii shalay ahayd ka dhacay toga jeceel oo ay fariisin weyn ku lahaayeen kooxda daacish kadib markii halkaasi ay weerareen ciidamada puntland waxaana halkaasi ka dhacay dagaal kharaar oo gaadhay ilaa gabaldhicii shalay islamarkaasina ciidamada iyo kooxda daacish halkaasi ku dhex maray waxaa dagaalkaasi lagu laayay dagaalyahano ajaaniba oo ka tirsan kooxda daacish kuwaasi oo ku dhowaanaya ilaa 50 dagaalyahan oo Soomaaliya ay ajaanib isugu jira sida ay soo bandhigeen ciidamada puntland meydadkooda iyo weliba sidoo kale sawirada ay ka soo qaadeen sidoo kale ciidamada puntland ay wararka qaar sheegayaan inay ka dhinteen ku dhowaad ilaa 10 askari oo markaasi dagaalkii halkaasi ka socday ku dhintay sidoo kalena waxa ku dhaawacmay rag badan oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidanka puntland oo lagu arkayay iyadoo baraha bulshada la soo dhigayo islamarkaasina looga baryayo alle inuu markaasi u bogadhayo duqeymaha waxaa filinaya sida wararku sheegayaan dayuuradaha imaaraadka kadib markii ay dalbadeen ciidamada puntland ee dhulka ka dagaalamaya in markaasi halkaasi laga duqeeyo kooxda daacish weli lama oga khasaaraha rasmiga ah ee goobaha la beegsaday ka dhacay si maalmo ka hor ayay ahayd markii dayuuradaha xambaara bambooyinka waaweyn ee maraykanku ay duqeeyeen godad ay deegaanadaasi ku lahaayeen kooxda daacish islamarkaasina la sheegay in lagu dilay ilaa 46 xubnood oo ka tirsan kooxda daacish sidoo kale wararka qaar ayaa sheegaya in xalay halkaasi markii duqeynta kadib uu dagaal ka dhacay kaasi oo dhex maray ciidamada puntland iyo kooxda daacish ee deegaanadaasi ku sugan islamarkaasina ay ciidamadu iska difaaceen kooxo doonayay inay weerar ku soo qaadaan ciidamada si gaadmaana ay markaasi ku soo weerareen waxaase la sheegay in ciidamadu ay guul weyn ka gaadheen maadaama ay weerarka ay kooxdaasi doonaysay in ay markaasi ka hortageen dhinaca kale madaxweynaha puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa qaabilay oo bogaadiyay gudoomiyaha degmada Qandala Axmed Yuusuf Kruushe oo ay weheliyaan saraakiisha ciidamada daraawiishta ee aaga Qandala kuwaasi oo laamaha amniga ee xukuumadda puntland ay ku soo wareejiyeen Lahore oo ka tirsan kooxda daacish oo markaasi isu soo dhiibay ciidamada puntland madaxweyne Siciid Deni ayaa gudoomiyaha degmada iyo saraakiisha aagaasi ku ammaanay doorka weyn ee ka qaateen howlgalka ciribtirka ah kooxdaasi daacish oo laga safeynayo buuraha calmiskaad ee gobolka bari iyadoo maalmihii la soo dhaafay la arkayay gudoomiyaha degmada Qandala oo markaasi aagag hor leh sheegay in markaasi ciidamadu ay tagaan sidoo kalena isaga oo ku sugan deegaanadaasi dadka shacabkana ku dhiirigelinaya inay laamaha ammaanka ay la soo wadaagaan kooxahaasi firxadkooda haddii ay arkaan